ugu dambeyn ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa gaaray goobtii ku soo dhacday diyaaradda xamuulka ahayd ee deegaanka lagu magacaabo Xawaalow oo ka tirsan Jasiire gobolka Shabeelle Hoose ciidamada sida gaarka u tababaran ee Alfa Group ee ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka iyo ciidamada amniga dowladda Soomaaliya guud ahaan ayaa gaaray goobta diyaaraddu ay taal waxaana la sheegay halkaasi markii ay ciidamadu gaareen ee gudaha u galeen diyaaradda xamuulka oo ku soo dhacday deegaanka Xawaalow dhimashada waxaa la tilmaamay 3 kamid ah shaqaalihii diyaaradda saarnaa qof dhaawacana waa la xaqiijiyay taasi oo ka dhigan 40 ruux diyaaradda saarnaa in 3 kamid ay geeriyoodeen waa war hore marka la fiiriyo xogta hadda ay la wadaagay waxaana guud ahaan goobta diyaaradda gacanta ku haya ciidamada amniga oo sameynaya samata bixin iyo u gurmasho goobta ay gaareen iyagoo hubinaya balbadqabka diyaaradda sida u dhaqaan iyo xaaladda ammaanka agaarka goobta diyaaraddu ay ku dhacday lagu magacaabo Xawaalow oo baqal ka hagaysa ayay diyaaraddu taala ciidamada amniguna halkaas ay gaareen iyadoo si buuxday hadda gacanta ugu hayaan goobta diyaaraddu taala isla markaana ay sameynayaan bal in la soo qaado dhaawaca iyo meydadka ka dhashay shilka diyaaradeed diyaaraddan xamuulka ahayd oo ayaa ku dhacday deegaanka lagu magacaabo Xawaalow waxaana ka timiday Dhobley jubbada hoose waxaana tilmaamay inay Muqdisho ku soo jeedo oo rabtay inay ka degto garoonka caalamiga ee Cadde diyaaraddu waa kuwa xamuulka qaada sahayda iyo baabuurta iyo waxa la midka waxaana ay ka diiwaan gashneed waddanka Kenya oo ay ku duuleysay FYRBA lambarka taargadaas ayay wadatay diyaaradda xamuulka ku soo dhacday deegaanka lagu magacaabo Xawaalow oo baqal ka xageysa dekadii macmalka ahayd ee xilli ka shaqeyn jirtay marka laga hadlayo Muqdisho duleedkeeda hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya wali wax war kama soo saarin dowladda Soomaaliya tafaasiil kama bixin hay'adda dowladda reerka Soomaaliyeedna wali wax war kama soo saarin diyaaradda ku dhacday deegaanka Xawaalow waxaase socotay ilaa caawa gurmadka iyo sidii halkaas lagu gaari lahaa ugu dambeyntiina ciidamada amniga ayaa gaaray oo xaqiijiyay goobta diyaaraddu taala iyagoo halkaas hadda ka wada wixii kaga aadanaa ee la xiriirta bal hubinta iyo guud ahaan xaaladda diyaaraddan xamuulka ahayd ee ku dhacday deegaanka lagu magacaabo Xawaalow oo baqal ka xageysa wuxuu ku soo kordhay xogtan iyo tafaasiisheeda waxaad kala socon doontaan isla halkan